السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا كانال كينا سرماني. موضوعنا maanta wuxuu noqon doonaa dil xaq dara ah iyo dulmi marnaba laguma badbaado. nin ayaa hadda ka hor ka shaqaysan jiray doon yar oo uu dadka webiga ugu gudbin jiray. haweeney wadata ilmo 2 sano jir ah ayaa maalin raacday. wuxuu damcay inuu kufsado haweeneydii. way diiday. ilmihii yaraa buu lugaha ka qabtay oo madaxa u geliyay webiga si uu ugu cabsiyo oo ay u ogolaato. oohin bay ku dhufatay. ma jirto cid ka celinaysa. waxay istiri badbaadi ilmahaaga yar. laakiin hooyadii iyo ilmihii labaduba webiga bay ku dhinteen. isagiina wuu iska tegay. magaalo kale ayuu u guuray ninkii. wuxuu ka noqday kawaanle xoolaha qala. muddo kadib subax aroor ah isagoo xoolo soo qalay oo dhiig leh ayuu arkay nin wadada yaal oo mindi lagu dilay. wuu ku leexday si uu u eego. boolis ayaa goobtii yimid isla markiiba. waa la xiray ninkii. maxkamad baa la geeyey. booliskii soo xiray ayaa ku marqaati furay inay caddeyn hayaan ninkan inuu dhiig lahaa, mindi weynna sitay. waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. wuxuu codsaday inuu hadlo intaan la toogan. wuxuu yidhi, xaqiiqdii ninka hadda la ii tooganayo aniga ma dilin, balse naf ayaan horay u dilay. hooyo iyo ilmaheed yar 13 sano ka hor. cid noo jeeday ma jirin, waana iska hilmaamay. dembigaas ayaa maanta la iga jarayaa. haddii aad istiraado cidna kuuma jeedo markii aad fal samaynayso ama fal dembiyeed, haddaba xusuusnaaw dhagaystay ama daawade in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu meel walba joogo kuna arko, waxna aysan ka qarsoomin. saas darteeda Ilaahay ka cabso oo ka xishow qaladaadka iyo dambiyada aad galaysidna ka joogso. halkaas waxay nooga eeg maanta daawade mawduucani maanta. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videoga haddii aad ka heshayna like saar, sii faafi u dir asxaabtaada videoga share garay macnaha. وبالله التوفيق والسلام عليكم.